Toddoba ka mid ah 10kii gabdhood ayaa aaminsan in aysan ku filnayn ama aysan si uun u cabirin oo ay ku jiraan muuqaalkooda, waxqabadka dugsiga iyo xiriirka saaxiibada iyo xubnaha qoyska. 75% dhalinta kalsoonida hooseyso ayaa la sheegay in ay ku howlan yihiin dhaqdhaqaaqyo aan wanaagsanayn sida jarista, cagajuglaynta, sigaarka, cabitaanka ama cunto xumo. Tani waxay la mid tahay 25% gabdhaha leh kalsooni sare marka loo eego sahanka. Daraasad la sameeyay ayaa muujisay in 1% gabdhaha da'da yar ee naftooda ku wanaagsan ay yihiin ku dhawaad 29% marka la barbar dhigo wiilasha 46%. Kalsoonida gabdhaha da'da yar waxay aad ugu xiran tahay sida ay u aragto qaabka jirkeeda iyo miisaanka jirkeeda marka loo eego inta ay dhab ahaantii u muuqato iyo muuqaalkeeda. Qiyaastii 20% dhalinyaradu waxay u badan tahay inay la kulmaan niyad jab ka hor intaysan ku biirin kulliyadaha. Ardayda dugsiyada sare ku dhawaad 44% gabdho iyo 14% wiilal ayaa isku dayaya in ay lumiyaan miisaankooda marka loo eego sahanka. Xusuusteena si fudud ayaa loo maamuli karaa iyadoo 3 saacadood gudahood lagu qancin karo inaad dambi gashay. Sanadahaagii dhalinyaro aan xiriir wanaagsan la yeelan qoyska ama saaxiibada waxay halis sare ugu jiraan inay ku dhacaan isticmaalka muqaadaraadka iyo niyadjabka. Dhalinyaradu waxay u badan tahay inay qaataan khataro badan marka loo eego koox kasta oo kale. Dhalinyaradu xataa kuwa ay tahay in ay aroortii hore kacaan waxay soo jeedaan habeenkii oo dhan, waxayna inta badan la kulmaan hurdo la'aan ama rabitaan hurdo. Dhalinyaradu waxay si fudud ula qabsan karaan qof kasta, dadka caanka ah, taxanaha TV-ga marka loo eego koox kasta oo kale, sababtoo ah koriinka baaluqnimada maskaxdooda. Maskaxda dhalinyaradu uma dhisna in ay qabtaan shaqo adag, waxay rabaan guul si fudud oo degdeg ah. Muddadani waxay sidoo kale kordhisaa walwalka bulshada ee dhalinyarada. Muuqaalkeena maanta taas ayuu ku egyahay. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, kuna soo biir kanaalka haddii aadan weli ku soo biirin.